qabtay wadanka Morocco magaalada Casablanca waxa ka qayb galay famil Soomaaliyeed oo runtii caruur aad u daayar aan hore barnaamijka aan kaga hadalnay iyagana waxa ay galeen kaalinta shanaad waa golofka taasi waa dareemi kartaan in rajada daayarta Soomaaliyeed mise qurba joog ha ahaadaan mise gudaha Soomaaliya ku noolaadaan in isbedel aad u qurux badan oo Soomaalidu u muuqdo waxaan rabaa tan golofka raba in aan wax yar aan ka yara taabto deeshe arinta golofka si wanaagsan oo la socotay ka waran wax yar wallahi arinta golofka si wanaagsan waa la socda laakiin sanadkan waxa umalaysaa in aan u wada soconay Soomaaliya oo dhan si wanaagsan runtii markii koo lama ogeyn oo macnaha laakiin sanadkan ma sha Allah adduunka dhan Soomaali badan oo hataa waa arkaysay warbaahinta dalka inay ka soo baxeen soo raaceen Morocco imaadeen oo wixii ay noqotay wax oo macnaha wadanka dhan wada dhaxay ummadna ku xirnaayeen la dhiirigelin hadda marka aragto macnaha ilmo yar ay ku magalaayo ما شاء الله waxay noqotay wax oo lama filaan ah teeda kalena sanadkii hore waxayna ku dhameysteen kaalinta lixaad sanadkan waxay ku dhameysteen kaalinta shanaad macnaha waa ujeeda dadaalka ay sameeyeen hadana macnaha markaas ay ku dhameysanayeen kaalinta lixaad da'da ay jireen maanta way kaalinta ma da'da ay jiraan macnaha mustaqbalka fiirkan ilmaha yar meesha imaan karaan meesha in gaarsi kara magac ahaan runtii waa wax aad looga farxo runtii hadda familkan waa hayna laakiin familka kala badan ayaa sugana waxa laga yaabaa in ay jiraan laakiin aan ka wareerin laakiin inay soo bataan waa jecelna dawladda haddii ay jiraan reero Soomaaliyeed oo isboortiga kala duwan ka qayb gala fadlan waxaan ka codsanaynaa in ay si toos ula soo xiriiraan barnaamijka Kick-Off ciyaaraha isboortiga mar waliba waxaan diyaar u nahay in aan soo gudbino jiilka cusub ee Soomaaliyeed